هي isku days ilaa hadda ma fahmin ma halkaan oo joogaa ya ها nihow waa idinkaga dhex baxa adi iyo raaqiraadka isla hadlaniyo ma fahantay waa idinka tegaani لكن سميش يجي تجي صحيح وانا هوش على باي القلي نيو ابدلك كالي ابدلك اي واي وعلي والله ما شيء هذا سيء بلابا لفي نيو انا كو شرحاي ku soco ان نيو ان وحي wax ku bilowdeen bal ii sharax ان waa ogtahay faraantiga aniga ahay waxaa ii imaaday abadhalka kadib wuxuu idhahay macnaha wuxuu idhahay faraantiga wuxuu idhahay waa bixin reeaqaraadse been lagu cabaa laakiin waa gabad no gadashada oo saxda ah ma ahaniyo waa kaftameenan yaa lafay waa tegay wallah saa waxa yeelaa hadda inaa guriga aado waaye abdalka inaa u tago waa saaxiibkii baxar weyn oo ku jiraa maanta wallah ha markii aan u tagnana ninkii aan dahabka ka gadanay wuxuuna yiri $580,000 keena ana idinka siina haddii kale xafiiskayga baxoon nagu dhahay dhacweynu noo geysta ninkaas ay taas waa mid wanaagsan waxaa leeyahay waa ganacsi suuqa madow waa ganacsi ay very bad waa wallahi bilaani waa laakiin dadka ka gada anaka aan wajiyadan wax xasuustaa xitaa si fiican isku days abdalka ma la soo galay waan ka xumaanay waa ka soo tagay waxaan rabay inaan waqti ku siiyo si awlaha sharci aakhiraadka ma fahamtay waqti aan ku sii rabay laani abdalka ma baxay ma arki kartaa kan fiiri mujida ninkana meeshaan aan ku arkay aan kula kulmay adoo ku sugaya markaa ninkani waa lafay maxaa waad lafayga iyo waxaa sheegaysa niyo mudane magacayga waa dhal abaareed markaan kula kulmay musku ka sheegin qofka ahay si fiican waqti ma haysan marka iska baro dhal abaareeda la dhahaa abdalka ninkan meesha fadhiyo waa reeaqraadkii moogido sidee ugu tilmaamaysaa ninkan reeaqraad ani bis waa reeaqraad arkay oo hadda sida dhabta farantiga oo gadata miya lafay kalsooni dara ayaa igu rida saaxiib waxaan kugu aamina farantigina adiga haysid laakiin waxaa i tiri it's over taa macnaheeda maaha in adiga ku siiyey ha laakiin waxaan u qabay inaad maaragtay baxday oo biibtay oo shubtay laakiin weli waa farantigayga waxaadan go'aankeeda lahayn sidee ku samaysa adiga aniga ayaa iska leh waxaan u soo gatay liisa qofaan ayna ma haysan karto waa ina haysata liiso lafay liisa waxaas way ka socotay haddii hadda faraantiga aan u geenno xasuustii horaa soo kaceyso way ku saxariiraniyo bal fiirsha qofka talada isiinaayo keliya waxaan kuu sheegaya isku days aniga ma haysto wax waqtiya oo igu filan halkan kusii joogo xaqiiqdii waxaan u baahnaa inaan baxo sababan dunida usii mashaaxmaba aqanba aniga laakiin sabab ayaa jirto lagu yeedho nasiinada get my ring back talo waa igu caddaatay ninkan faraantigiisuu rabaa faraantigiisana waa qaraxsaday lacagna ma haayo saa u soo celshaa marka inaan fikro waayo ninkaa daaya wuxuu yidhi waqti badan oo igu filan ma haysto oon ku joogo taasi micnaheeda waa inuu mar dhow baxaayo maxaa nafteeda u dhibayaa marka horbaxa dhaqashinkaaniyo maama maana qaaci ahaa soo dhawaa mudane waan dhowhay meeqaa gaday waa 100 shilin le 2 xaba keen marka
hay alaabtaasaan u jeclahay. hoo mudane isii farantigayga Eya lafay intee ka gala aniga qosbulkaaga intee ugu tagta mudane maxaa kugu dhacay iga tag dheh inaan ka nasta waayo meeshaana tartiibka casriyaa waxaa iska baashaalaa banaankiga iska wareegaa balaayo ku daba dhigata dhe ree aakhiraada weyta ya akir see camal iga tag dheh kaale ba korkaaga qaacay kaale fiiri waxaa ku weydiiyaa mahelay dafo isii farantigayga lafay bilis waa ku baryaa are you okay farantigaygii farantigaygii ya waa laisku yimid raga carraba meesha waa la rabaa hallo maxaa maqlay inaa ila kulanta ay rabti yes madam Liza okay waxaan kuu sidaa salaan ka socota lafay excuse me sorry magacaygu waa isku days waxaana saaxiibnaha lafay okay inaa kulanteen muu malaynaya because saaxiibadiis inaa kasaa annaga laakiin hore uma kulmin laakiin maalmayra ka horaa la kulmay haye laakiin lafigayga maa ka hadlaysaa because lafigayga 2 bil ka hor ayuu dhintay yes lafaygaaga laftirkiisa isaga waaye mid xoogaa inuu dheeriya loo malaynayo oo haddana xoogaa yar cadcad waaye oo etoobeen u eg wuxuu ii sheegay faraanta inuu kuu soo waday oo telefoon adiga kaala hadlaayay kadibna shil galay meeshaas uu ku dhinto ii sheegay adi waxaan u malaynaa inaad tuugnimo igugu imaado soo maaha no aniga weligay wax ma dhicin waa ku baryaa biliis dhegeyso ifaham waa ku baryaa sheekadan aan ku sii wado sida caadiga ah xariiftankaygaa ku jiray kadib waxaan bilaabay inaan arko ree aakhiraad oo lafay ah kadib wuu i waday meesha faraantiga yiilo i geeyey waa soo helnay wuxuu rabay inuu adigu kuu keeno faraantiga xataa waa imaanay anaga meeshaana soo istaagna xataa laakiin marka dambe wuxuu arkay adiga iyo mid kaloo isku tuurtuurahayo odaga waa xanaaqi zaa'id uu xanaaqi kadib woo baxay markii aniga faraantiga igu soo haray sidaa kuu sheegane lafay waa baxay marka faraantiga maxaa ku sameeyaa aniga waa qarxiyey cadow weynaana leeyahay oo baahida ku daboolay calaa xal faraantiga waa gaday asna meelaan la arkayna inta ka yimaado wuxuu leeyahay aniga faraantigaygaa rabaa marka hadda waxaa ku dhihi lahay walaashay waa ku baryaa faraanti ma haayo ninkaan igala hadal inuu hadalkaaga yeelaa laga yaabaa meel walbo aad tago wuu joogaa wejiyaashu isku ekaysiyaha ani baahiyaa i dishay oh my god security mar waxaa ninkan muxuu kuu sheegay markuu inta imaanaya wuxuu dhahay madam Eliza rabaa magacayga ma wacay ha ninkan waxaan u malaynaa inuu maanakobi ka soo cararay marka iga bixi banaanku saar no madam aniga muwaalni waa ku baryaa muwaalni aniga waa ku baryaa ifaham waan ogahay ukaada hal mar lafay niyow hal mar maa imaadid oo wax dhahdid saaxiibow qoftaan inaa waalanay u malaysaa war maxaa sugaysaa iga bixi ninka waxba hay jiijidin anaa baxaya tartiibkayga ya lafay war niyow waa wax dhahdid saaxiibow maxaasaa i yeelay saaxiibow wax dhahno kaaraan ku dhaqofta kaaraan sug ka leexo maxaa dhahday sorry adiga makula hadlayn madam no maya waxaa dhahday kaaraan ku dheh kaaraan ku dhaqofta kaaraan ku dhaqofta kaaraan busley kaaraan meeshaas waxaa meesha ku kulmi jirna waaye yaa tahay adiga alxamdulilah ugu dambeynta waa i fahantay sidaa darteed wuu xanaaqay wuuna baxay sababtoo ah wuxuu arkay adoo nin kale la sheekeysanayo oo weliba maaragtay muxuu ahaa oo weliba asaga ku shumyahay shumiya dalmar ninkaas waa ninka jimka isku barano waaye waana u sheegay inaana diyaar u ahaynin guur marka anina weli waxaan jeclahay lafey qalbigayga asigaa ku jiro waa ogaa taas jeclahay waa ogaa muxuu ku dhahay no wax ma dhihin ma joogaa weli ha wuu joogaa lafey weli waan ku jeclahay aniga xafiiskayga xitaa sawirkaaga ayaa ii yaalo
xitaa taleefanka shaashadiisa sawirkaaga ayaa ku dhegan marka waa ogtahay inaadan waxaasna jecleenin laakiin wax walbana waa isla wadaagi jirnay maxay ahayd sidaas maa ku tuuri karaa xusuustaada oo liisa wuxuu yidhi oh liisa waa ogaa waxaas inaa dhehaysid no ha oynin wuxuu ku yidhi mar rabo inaa oysid oo intaada maqlo waxaan rabaa inay hore u socoto yaa u sheeg hore ha uga socoto waxay leedahay nolol ay hore ugu socoto aad ayaan u jeclaa waxaan rabaa keliya inay faraxdo muxuu dhahna liisa wuxuu ku dhahayay hore u soco gadaal ha u soo jeesan anigana waan baxaya ayuu yidhi mana soo laabanayay ninkan isku daysana ma dhibaayo mar kaleeto laakiin ani eryada iskuma dhihin laakiin waa casriyey maho wax fudud ma ahan runtii sidaanoo kale markaan ku arka ma jecli waa kuu sheegay dumarka waa qalbi jilcayihiinaa ku dhahay laakiin waxaa u malaysaa inaa faraantiga dartiis u dhahayo waxaas waa ka xaxaabe waxaa samaysa fiiraaday waa kaa dhaalgelin lahaa oo soo laabtay doonaa inaan sidaanoo kale ku arko waxaan u baahnaa inaan baxo isku day saaxiib waa maasan tahay waa ii dhacan lahayd waaga adduunka joogay inaan adiga kula kulmo sidoo kale mahadsanid wuu baxay finally it's over waa xoroobe walaah ii geli afka waa xoroobe beesan isku babiyaha badarna beerkaa saaraha walaah miskiina ba yaa waxaa wejiga maxaa ugu dhacay bismillah miskiin wejigaa ka halaysan foolxumaa waxaa madax lemiya see jikinka u warcunaa miskiinkan waa baahanyayaa waxaa madaxa qoorta muu ku cistaa weynin badanaa laakiin weji gaargacan u egsay magaalada loogu maraa weyta kaale bal kaale haa mudane fiiri kaale soo dhowo ninkaan muujeedaa wejiga yaabiskaale wuxuu cuna ugeyn oo baahiyaha isaa u malaynaa wallaahi jikin iyo bariis isugu daray ogeey waa baahanyahay anaa ii kala kacsantaa maalmaane mudane qof maba joogto meeshe dadman qof ma arkooy aniga yaa see camal he haddana ree aakhiraad baa weli daba taagan aniga it's over